kusoo dhawaada Kacab Media haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar like share comment soo dhawaada asxaabta shakhsi sheegay inuu dhalay fanaanada Nadir Nayrus haddaba muuqaalkeena waxaan ku soo qaadan doonaa shakhsigan oo ah aabba Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegaya inuu dhalay fanaanada Nadir Nayrus isla markaana uu ka baafinayo halkan haddaba waa arin aad u cajiib ah fanaanada Nadir Nayrus oo kamid ah fanaaniinta caanka ee Soomaaliya ku sugan ayaa waxa lagu waramayaa in shakhsigan uu leeyahay waxaan ay ahayd gabadheeda waxayna bedelatay magaca shakhsigan waxa uu soo bandhigay magac kale uu sheegayo in lagu magacaabi jiray fanaanada Nadir Nayrus isla markaana magacaasi hadda Nadir Nayrus ee la baxday waxa uu sheegayaa inuu yahay aabaheed isla markaana uu hadda baadi goobayo isla markaana halkan uu ka baafinayo muuqaal laga soo duubay shakhsigan ayaa waxa uu ku sheegayaa in uu dhalay fanaanada Nadir Nayrus isla markaana uu yahay aabaheed isla markaana uu baafinayo arintan ayaa si weyn dadka baraha bulshada isticmaala ay ula yaabeen haddaba war badan ayaan igu daalinay bal aan daawano muuqaalka shakhsigan sheegaya inuu yahay aabaha Nadir Nayrus dhinaca kale fanaanada Nadir Nayrus ayaa beenisay warka ka soo baxay odigaas oo ku sheegay in uu dhalay fanaanadaasi iyadoo sheegtay in aabaheed la yaqaano oo caan yahay isla markaana uu joogo iyadoo sheegtay in shakhsiyaad kale ay odigan ay u soo meeriyeen isla markaana arintaasi ay tahay mid been abuura odayga weyn u jeedin kulaha Nadiran dhalay aba idale waa idali karaa ko laakiin markuu hadda isoo sheegay ko hortii first one intuu igu ogaa marka labaad ku soo hadhay ninka ka hoos hadlaya ee odayga weyn kilifaya walaal adigu amal ma raadsatid walaal adigu ma magac samaysatid qof bil aadana magac samaystay inaad qof kale ku soo lifaaqo waa laga fiicay ana alxamdulillah rabbil alamin aabahi waa la yaqaana maxamed ciga ilbiraal laha ilaahay wuxuu geystay meesha jeclaa qof walba uu taagan yahay ilaahay u naxariisto aabahi uu dhintay waana ogahay naag hadda aabahi baranaysa ma ihi marka oo adigana waa lagu soo qalday hadii minjin chat intii ku goosan lagu gaday qofkan dhaliile ha i dhaliilin ceeb ka saliin ahay waana la yaqaanaa